بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee caafimaadkii cimriga nasiyay thumma inaan u mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale inaan u mahad celiyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye sidoo kale aan u mahad celiyo wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha xoogga oo aan isleeyahay waa nin dhalinyaro runtii aan isleeyahay aad ugu firfircoon shaqadiisa aanan ku bogaadinayo garab istaaga ciidamada iyo u dhawr adeegida iyo aqoonta uu leeyahay inuu fuliyo waajibaadkaas anigoo ah gudoomiyaha guddiga difaaca ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya golaha shacabka runtii waxaan isleeyahay taliyuhu waa taliye runtii ku haboon in lagu baraarujiyo laguna garab istaago loogana mahad celiyo waxaan runtii geey doonaa hadii alla idmo golaha shacabka guddiga joogtada qaybta ka ahay iyo muxuu ahaa baarlamaanka hortiisaba in amaanta uu leeyahay iyo waajibaadkaas aan meelo badan oo gooba ka sheego hadii alla idmo si wasiirka gaashaandhigaba inta markaan uga gudbo runtii waxaan isleeyahay aniga iyo guddi kale ee waxa jira meeshan wax ka soo bilownay xildhibaano ka soo jeeda Galmudug iyo Hirshabeelle iyo shirar waxaan ka bilownay markaan magaalada Muqdisho markaan aragnay kacdoonkii ka dhacay meesha la yiraahdo Hiiraan iyo nimanka qawaariijta ee ilmaha yararka iyo qaadu dariiqa ee jidka u galay ee caruurtii dilay ilmaha aragteen saqiirada social media la dhiga gowracay baabuurtii masaafirka ah aan u kala aabayeelna dariiqyada ku gubay ceelashii biyaha ee abaarta aragteen oo jirta runtii ceelashii ka gubay oonka iyo haraadka iyo dhibaatada dadku baray markaan fiirnay diinta islaamka waxa ay ka qabto waxaan noo soo baxay inaan dadka aan metelno ee labadaas gobol ka soo jeeda aan ku baraarujino in qawaariijtaas ilaahay ka furtay oo daalimiinta in laga hortago dadkana laga dulqaado inaan dadka ku wacyi gelino kuna baraarujino ilaahay fadligii waxaan u tagnay madaxweynaha jamhuuriyadda anagoo guddiya waxaan ka codsanay madaxweynuhu waxa ka socda Hiiraan inaan wax indhaha laga qarsan karo aysan ahayn sidaas darteed dawladdu wax alla wax xoog ay leedahay in la isugu geeyo madaxweynuhu waa naga aqbalay runtii hawsha ka socota meesha la yiraahdo Hiiraan waxaan uga mahad celinaynaa madaxweynaha iyo wasaaradda gaashaandhigga ee taliyaha xoogga iyo taliyaha ciidanka lugta iyo saraakiisha kaleba waajibaadka laga qaatay runtii haddaanan dadka dawladdu aysan hor socon ciidamada xooggu aysan socon guulaha maanta la gaaray lama gaareen dhinaca annaga kale xildhibaanadana ka soo jeeda reer Hiiraan waxaan uga mahad celinayaa inay ayaguna garab istaag badan muujiyeen dhinaca kale gudoomiyaha Cali Jeyte oo isleeyahay sanadkan waa haliyay u soo baxay ummadda ku nool gobolada dhexana waxaan la rabaa inaan halkan uga mahad celiyo shaqada uu hayo ee uu bilow u ahaa inta markaan ka baxo runtii qaybaha nooga aadanaa ballanqaadyadii la qaaday annagoo xildhibaanada ka soo jeeda deegaamadan waxaan u soo wareegnay inaan nimaadno meelihii waajibaadkii la kala qaatay qayb ka mid ah xildhibaano aan ka mid ahay waxay yimaadeen magaalada Dhuusamareeb ilaahay fadligii markaan nimid howlgallo socdaan ku soo aadnay waxaa dhacay meel la yiraahdo Sinadaqo ciidanka xoogga deganaa in kuwii qawaariijta ay ku soo qaadeen duulaan halkaasna ay jab xoog leh u geysteen wixii ka dambeeyay taliyihii xoogga iyo wasiirka gaashaandhigga iyo madaxweynaha Galmudug iyo annagoo ku biirnaba waxaan halkaa ugu tagnay in lagu baraarujiyo ciidamada gorgor halkaa joogay iyo saraakiishoodaba runtii shaqada quruxda badan ee qawaariijta u geysteen ee meydkoodii iyo wixii ilaa muxuu ahaa alla amray in la duugo laakiin halkaa dhibaato badan loogu geystay intaa markay dhacday oon meesha iskaga daba tagnay waxaan qiimeyn ku sameynay sida wax u jiraan iyo deegaamada gacanta ka maqan iyo deegaamadii hadda ay dhumaalisi ku yimaadeen waxaa la isla qaatay waajibaadka in inta hadda caasimadda hoos timaada ee ay dhumaaleysiga ku yimaadeen ay miinooyinka geliyaan in tallaabo laga qaado tallaabada xigtana markan gacanta ay la soo galaan deegaankaasu tuugada laga dhameeyo jidadka la furo la xaqiijiyo in gulufkii kale colaada ee deegaanka 15 sano iyo inta ka badan deganaayeen loo gudbo waxaa la xaqiijiyay tuulooyinka aan isleeyahay ilaa dhowr iyo 20 tuulo oo hadda magacyadooda halkaan ku soo koobi karin laakiin kuwa caasimadda hoos yimaada in 5 cisho aan maqnayn lagu soo xaqiijiyay miinooyinkii laga baaray dadka jooga la wacyi geliyay haddana ay weli ku sugan yihiin ciidamadii xoogga dalka ciidamadii deegaanka kuwa booliiska
iyo muxuu ahaa ciidamadii daraawiishta ee galmudug intaa ka bacdi runtii xalan waxaan kusoo laabanay annagoo mas-uuliyiintanada magaalada dhuusamareeb ilaahay fadligii meenooyinkiina waa laga bixiyey guulahaasna waa la soo gaaray haddana ciidamada weli meeshay jiraan waxaan rabaa marka inaan qaybtii labaad ee xoreynta ee markii jidadkii la xalliyey unbaa hadda la rabaa in loo gudbo loona diyaar yahay ciidamadiina ay diyaar u yihiin ilaahay fadligii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliyahoodaba maanta waxaan is leeyahay dalkan amisom iyo cid kale iyo muxuu ahaa meelaha uu la qabtay inay xaliyaan moogiye way ku filan yihiin haddana waxay dagaalku ka socdaa qaybo badan ee kamida muxuu ahaa galgaduud oo runtii jab xoog loogu geystay deegaamadaas oo kamida deegaamada aan xildhibaanka u ahay hadda ay cirifkoodii la galay taasna aan rabno inaan ka qayb qaadano biidnillaah si aan dadka walaalaha aan la dhihin heer hebel aan kusoo duulay heer hebel aan kusoo duulay dhinaca xiin dheere ku aadan inaan ciidamada aan xoreynta inaan qayb kamid ah hadda halkaa u dirno qaybo kamidana hadda waxay ku jiraan howlgalkii qaybo kamidana waxay hadda joogaan dhuusamareeb intaa markaan ka gudbo waxaan rabnaa inaan u gudubno haddii alla idmo dadka xildhibaanada ee aan waajibaad kala qaadanay ee walaalaha ee hadda jooga le muxuu ahaa afka in laga celiya lama rabo waa maanto kale waa maalintii dadku qabiilaad waaye qabiilaadka hawiyaha inaan runtii ka kicino deegaanada walaalaha kale ee Soomaaliyeedna u sheegno iyaan isla qaadanay qabiilka la yiraahdo mursadaha hadda abaabul xoog leh wadaan intaan ka warqabo qabiilka la yiraahdo mudulood oo qayb kamida waliba degan yihiin galmudug na hadda idaacadaha waad kala socotaan oo waxay wadaan abaabul xoog leh qabiilka la yiraahdo saruurka oo deegaamada bariga dadka laga haysto kamida waxay wadaan abaabul xoog leh qabiilka Saleebaanka oo dhinac yar uga jiraan waxaad aragteen maanta wadaan qabiilka muxuu ahaa cayrka oo ayaguna ah runtii lafdhabarka deegaanka aan hadda joogno na waxay howlgalkoodii way socotaa diyaar garowgoodii intaa markii la isku daro waxaan rabaa in cid kasta ee kamida dadkii aan soo sheegay inay u diyaar garoobaan qawaariijta jidka iyo jidka oo dhibaatada ku haya in dadka laga dulkiciyo waxaan rabaa marka inaan u mahad celiyo dadka caasimadda degan ee haddii barasaabka gobolka maam heer gobol tahay iyo haddii heer degmata horkacayo geedo qorow iyo hadday tahay dhalinyarada iyo arrimaha bulshada iyo hadday gabdha yihiinba runtii hiil iyo hoorna la garab taagnaa ayagana waxaan rabaa inaan u mahad celiyo intaa kale waxaan rabaa xildhibaanada qaybta aan xildhibaanada u ah aniga xildhibaanada kale halkaan joogna ee heer gobol heer federaal heer maamul goboleed anaga tuutaa waxaan u xiranay inaan talaabtaas wax ka qabano laakiin waxa xoogaa in ku dhaliilaynaa inaad qaybihiini dib u dhacdeen waxaa la rabaa jaaliyaduhu inay ka soo qayb qaataan maanta qawaariijtaas haddaan dadka laga kicinna runtii dadku dib u dhac badanaa ku jira ceel la helay aan tagnay runtii waxaan ku aragnay waxaan indhahaadu aysan sheegi karin waa uun meeshii ay 90kii joogtay maanta weli joogaan iskool male deegaan male farxumada ka muuqata ilaahay unbaa og deegaamada kalena way kasii daran yihiin waxaan rabnaa wax iskool inay dhigta ma jirto waxaan rabnaa wax caafimaad haysta ma jirto waxaan rabaa inaan idiin sheegno wax biyo nadiif haysta ma jiraan haddaad adinku haysataan kuwaas ma haystaan walaalayaal waxaan rabnaa inaad u diyaar garowdaan heel iyo ninka xoog bixi kara iyo ninka xoolo bixi kara iyo gabadhii in loo istaago maanta in qawaariijta laga dulqaado kuwa aad aragteen social media ku jira ee wax dacaayadeynayana waxay u shaqaynayaan shabaabka ha ku qaldameynina ciddii aan ka qayb qaadan ee aan howshaas maanta u istaagin eed aragtaan inay dadka kala qaybinayaan ee mursadii duble ka dhex shaqaynaya ee qabiilooyinka isku diraya ee Saleebaanka iyo dublaha dhinac ka hurinaya ee deegaanka qabiilooyinka aan la nahay warxumada ku wada waxaan rabaa inaan ina cadeeyo inay shabaab u shaqeeyaan marka ayaan lagu qaldamin qolada shabaabka u shaqeeyda walaalayaal u istaaga deegaanka in la xoreeyo walaalaha kale ee aan soo sheegin waxa weeye hadday baay iyo bakool joogaan ay yihiin digle mirafle hadday dir yihiin hadday beelshaan yihiin maanta qawaariijta qolo kasta meeshay joogto inay uga istaagtaa la rabaa waa dalkii iyo dadkii way la hareen sharaftanadii dib ay u dhigeen walaalayaal waxaan kusoo gabagabaynayaa maanta madaxweyne waxaan haysanaa xasan sheekh maxamuud la yiraahdo oo u istaagay oon shaqo kale ka shaqaynayn waxaan maanta haysanaa dad heegan u ah marka dadka ha la garab siiyo hana la istaago maamuladan ha lala shaqeeyo waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo waa guulaysanaynaa biidnillaah shabaabna waa laga dulqaadayaa dadka koobkoodiyaa buuxsamay diin male
dadkii waxaad garan kartaan nimanka dadka laynaya marka intaasaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo ilaahay hana guuleeyo hawshaan u soconnana allah kuwii guulaysta halnaga dhigo intii ka soo baxda ee ka soo muxuu ahaa ka toobad keentay ee ka timaadana waxaan rabnaa inaan soo dhaweyno inta kalena waxaan rabnaa inaan tallaabo ka qaadno intaasaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu